Bismillah. Een, anigoo ah madaxweynaha maamulka dibad jooga ee koonfur galbeed waxaan rabaa inaan halkan digniin iyo baaq aan ka soo jeediyo. Digniinteyda waxa ay ku wajahan tahay shacabka ku nool gobolka Shabeellaha Hoose. Shacabka ku nool gobolka Shabeellaha Hoose waxaan ugu digaa fatahaadada uu sameyn doono webiga Shabeelle, iyadoo xilli roobaadkii mihigaanka ahaa uu bilowday, lagana cabsi qabo in webiga uu sameeyo fatahaadyo. Marka waxaan leeyahay shacabka gobolka Shabeellaha Hoose ku nool in ay ka fogaadaan fatahaadyada uu sameynayo webiga Shabeelle, gaar ahaan dadyooga degan hareeraha webiga Shabeelle iyo meelaha loo maleynayo in uu webiga ka sameyn karo fatahaadyo. Waxaan baaq u diraa dhammaan hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga. Waxaana ugu baaqaa in ay gurmad hortag ah u sameeyaan shacabkaasi, oo ay dejiyaan ayna gacan ka siiyaan sidii ay u degi lahaayeen meelaha ka fog hareeraha webiga, si yacni ay aga samata baxaan naf iyo maalbo fatahaadyada uu sameynayo webiga Shabeelle. Waan ognahay kol hore fatahaadyadii ugu dambeysay in gobolka Shabeellaha Hoose uu khasaare naf iyo mood leh uu gaarsiiyey. Marka saa daraadeed waxaan hadda yacni ugu baaqaynaa hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah in ay dadkaasi gurmad degdeg ah ay u sameeyaan oo hortag ah, sidii yacni looga badbaadin lahaa fatahaadyada soo socdo. Shacabka mar labaad waxaan leeyahay ka digtoonaada, ka foojignaada, u tabaabusheesta in aad iska samata bixisaan fatahaadyada uu sameyn doono webiga Shabeelle, aadna ka fogaataan hareeraha webiga iyo meelaha loo maleynayo in uu webiga ka sameynayo fatahaadyo. Sidaa daraadeed waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan ugu baaqaa hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ah ee gargaarka bixiya in gurmad degdeg ah oo ka hortag ah loo sameeyo shacabka gobolka Shabeellaha Hoose intuusan webiga soo fatahin, lagana badbaadiyo fatahaadda soo socota, si aysan u dhicin sidii fatahaadyadii dhaweed dhacay ee ay shacabka ku khasaareen, uuna ka soo gaaray khasaare ba'an, naf iyo mood leh. Marka waxaan hadalkayga kusoo gunaanudayaa shacabka gobolka Shabeellaha Hoose, ka foojignaada, ka digtoonaada, ka tabaabusheesta, kana fogaada hareeraha webiga iyo meelaha loo maleynayo in webiga uu fatahaadyo ka sameyn doono. Ilaahayna ha idin badbaadiyo. Asalaamu calaykum waraxmat